ugaas cabdirasaaq koosaar cali oo ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wilwaal waxa uu ugu baaqay in uu gogashii nabadeed ee labada beelood ee walaalaha dagaalka ku dhexmaray koonfurta gobolka Sool uu dib ugu soo celiyo gobolka Sool si hawshaasi halkaasi loogu dhameeyo sidoo kale garaadku waxa uu sheegay nabadeynta iyo gogasha labada beelood ee walaalaha ee koonfurta gobolka Sool in ay taalay Soomaaliland gaar ahaan koonfurta gobolka Sool waxaanu garaadkaasi ugu baaqay in uu gogashaasi dib u soo celiyo ugaas cabdirasaaq koosaar cali oo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri muddo Soomaaliland waxaan leeyahay warqarnimadeen iyo jiritaankiina iyo dadnimadiina meel ugu soo wada jeesta inaan leeyo intii shaqooyinkii dhacay barigii dhaweeytana waxaan leeyahay abtiyaal bisha mawlid ayaan ilaahay idiga bariyaa in ilaahay isiyo sharaf iyo karaamo iyo afis idigu deeqo oo wax dambe naga dhimanay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashay in halka ay naga soo afjaranto oo wixii wax had iyo jeer dibe amba khilaaf yimaada qarankeena gudihiisa lagu dhameystaa inaga cidina meel looma timaado cidina kalena looma timaado waxaan leeyahay garaadka ku abtirsada garaad wiilwaal abti وش قد بيلاد هيكوت كيدا أبتي كسوعد وش قد بيلاد أبتي كوت كيدا كسوعد سوماليلاند مدحونو مرتقاد وش فيدي وحول ورعد والبوك جيسن سجعان والبان فيدي وش كان الكاد جيسي كسوعد أبتيو كسوعد يكوش شيء كوت كيلا هاي نبض هكذا صلوا حسنين وحلو كل ما يعني لهيدا كيسة sidoo kale ugaas cabdirasaaq koosaar cali ayaa waxa uu ka hadlay shiqaaqadii labada beelood ee walaalaha ku dhex martay deegaanka ceelaf weyn isla markaasina waxa uu sheegay dadkii dilalkii ugu dambeeyay geystay in barka la soo taagay isla markaasina waajibaadkooda la mariyo ugaaska oo mar kale arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxaan leeyahay qoladan abkayar iyaguna waxaan leeyahay si wanaagsan bay waxay u socdeen hawshu waa kii wadaadadii culimadii intii isku tagtay dhameeyeen labadii jeer ee dambe marna gabadhu ku dhimatay marna ninka dambe ku dhintay labada qof in barka la soo taagaa muhiim barka heshiis baa dhacay waxba dhamaaday wixii khilaafay dambe in labada ninba barka la soo taago kan damana la keeno sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo qabto hadii la soo qabto labada